الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أحبتي في الله، waxaan idin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa, waxaan idin ka digayaa ilaahay macsiyadiisa iyo amarkiisa oo la khilaafo. walaalayaal, waxaynu ku jirnaa waqti aad u adag iyo zaman aad u dhib badan oo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo xikmadiisa uu inagu soo hagaajiyay inaan adduunka waqtigan nimaadno. oo waqti adag, ruuxa muuminka ku adag, ruuxa muslimka ku adag, ruuxa muwaxidka ku adag. waa waqti wax kasta oo ilaahay diintiisa khilaafsan uu xoogaystay, wax kasta oo wanaag iyo khayr ahaana uu daciifay. waa waqti in badan oo mabaadi'dii diinteenna ka mida ay noqotay qariib, sharkii iyo xumaantiina ay noqotay macruuf. waa waqti kufriga iyo dowladihiisii iyo dadkiisii ay xoog leeyihiin, dadkii ahlu tawxiidka ahaa ee mu'miniintiina ay daciif yihiin. waa waqti ay fududaatay in xumaanta iyo sharka iyo gaalnimada iyo macsiyada la faafiyo oo adduunka lagu baahiyo, ayna yaraatay munkaraadka iyo xumaanta in la inkiro oo laga hortago. waa zaman ay badatay in la caabudo adduunyada iyo kuraasteeda iyo shahawaadkeeda, qiyamkii akhlaaqda iyo wixii qiimo lahaana uu yaraaday ama laga zaahido laga tegay. waa zaman akhlaaqdii baaba'day oo akhlaaq xumadii ay faaftay. waa zaman wixii khayr ahaa iyo taaco ilaahay ahaa ee ilaahay jeclaa uu noqday wax lala dagaalamo. xumaantii iyo fuxshigii iyo zinadii iyo liwaadkii iyo wax kastoo xubna uu noqday wax la taageeroo la garab istaago. waa zaman dadka intooda badan ay noqdeen wax adduunyo caabud ah, oo dirhamka iyo doolaarka iyo dahabka iyo adduunyada dhaldhalaalkeeda la caabudo. wixii qiyam iyo wanaag ahaa iyo diin ahaa iyo akhlaaq ahaa iyo caqiide ahaana uu noqday wax rakhiisoon qiimo weyn ku fadhiyin. waa zaman muslimiinta intii dareen diineed uu ku jiray xuquuqdoodii la siibay oo la dhacay, intii gaal iyo gaala raac ahaana loo gacan geliyey. waa zaman xaaladdu adag tahay, waa zaman fitanku faafeen. waa zamankii asminadii nabigeennu ka sheekeeyey sal alla alayh wasalam ee uu yidhi yusbixu arajulu fiiha mu'minan wayumsi kaafiran. zaman ruuxu subaxdii uu islaamnimo ku waabariisanayo iyo iimaan, galabtiina uu gaaloobayo. galabnimadii waa mu'min, waagu wuxuu u baryaa isagoo gaal ah. yabiixu diinahu bicaradin min addunya, diintiisii wuxuu siisanayaa oo dhaafsanayaa oo ku gadanayaa waxoogaa yaroo adduunye ah, dheef yaroo adduunye ah. zamankaasaynu joognaa. ruuxii dareen iimaan ku jiro, waaqaca iyo wadciga aan ku noolahayna garanayo, fahansan wixii laynaga rabayee ilaahay diintiisa ku sheegayna fahansan. waa zaman uu aad iyo aad u murgayo, oo aad u xanuunsanayo, oo aad iyo aad uu qandhanayo, oo wax maskaxdiisa ka weyni haysta waayo. waa zaman aan dhihi karno wuxuu ka mid yahay asmiinadii nabigeennu tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalam, kama fii saxiixi muslim. qiyaamadu dhici maysa buu nebi maxamed ku dhaartay sal alla alayh wasalam ilaa uu ruuxu soo maro ruux dhintay qabrigii, markaasuu ku gelgelimaysanayaa, wuu ismarmarinayaa, waa ku rafanayaa,
markaasuu wuxuu leeyahay shallaytee qabrigan ruuxa ku jira maxaan u noqon waayey maxaan hadda ka hor isaga dhiman waayey nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam dhimashada uu tamaninayo ma aha diin darteed ma aha laysa bihi diin fii riwaayati dayn culaysku dhanka diinta ma aha culaysku ma aha ilaahay kulankiisa ma aha laakiin culaysku wuxuu ka haystaa fitan iyo imtixaanaad iyo adduunka waxaa ku haysta wuxuu xamili la'yahay markaasuu wuxuu leeyahay maxaan hadda ka hor isaga dhiman waayey su-aashu waxay tahay horta ma dareensannahay xaalka jira wadciga ma fahansannahay haddaynu fahansannahayna su-aal baa imaanaysa jidkii lagaga bixi lahaa waa xaggee see loo badbaadaa see loo nabadgalaa fitankan sidee looga adoo bad qaba ama u dhimataa ama uga baxdaa jawaabtu si koobani waxa weeye dariiq kaloo looga baxa ma laha falsafad kaloo kaa saari kartana ma jirto dadaal kaloo fitanka lagaga badbaadana ma jirto ilaa in la raaco wixii ilaahay soo dejiyey nebi maxamedna laga dhaxlay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii meel kala moodaayey lafcad buu toobin ku hayaa maalin uusan talag gacan ugu jirin buuna farta dhexda ka qaniini doonaa awalan marka ugu horraysa mar walba la tacaal iimaankaaga inaad cusboonaysiiso maxaa yeele nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu tilmaamay fitanka culusi markay dhacaan isku day inay geeridu kuu timaado adigoo ilaahay iyo maalinta aakhara rumaysan iimaanka ku mitid mabaadida caqiidada saxda ku mitid ayada ku dhag ha kuu timaado tii alle adigoo mabda'a ku dhaggan weliba sida nebigu inoo sheegay iimaanku waa duugoobaaya kolba cusboonaysii kana warhay iimaankaaga lianna musiibada ruuxa muslimkaa waxay ka asiibtaa marka ugu horrey kaga dhacdaa hoosu dhac iimaankiisa ku yimaada halkaasaa laga galaa kadibna way la durugtaa macaasidiiyo dunuubtay la aadaa ilaa marka ugu dambaysa gaalnimo iyo kufri ay la aado xaggee ka bilaabatay iimaankaagaa hoosu dhacay waad dareemi weyday waad kabi weyday waad cusboonaysiin weyday markaasay kula durugtay qodobka labaad badbaado waa inaad wax barato ood kitaabka ilaahay barato oo sunnada nebiga aada barato oo ilaahay wuxuu kaa rabay fahanto oo waxa ilaahay uu kaaga digay aada fahanto oo waaqican oo kale markaad marayso see loo dhaqmaa aada fahanto cilmiga sharciga ah badbaado waaye leanna dariiqii buu kuu ifinayaa boholaha iyo booraanada iyo meelaha laga dhacay halistaa buu kuu tilmaami meeshaad lugto dhigi lahayd buu kuu sheegaya meeshaad ka tillaabsan lahayd haddaadan cilmigii iyo aqoontii diineed lahayn adoo wax hagaaji isle baad haddana hallaynaysaa adoo moodaya inaad quman tahay baad gebi ka dhacsan tahay lianna aqoon ma lihid haddaad badbaado rabto wax baro waqtigaaga bixi qur-aanka baro macnihiisa baro axaadiista nebiga baro macnaheeda baro xaaladahan oo kaleeto jidkee la maraa baro qodobka saddexaadi wuxuu yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey kitaabka qur-aanka ah nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku sharxay axaadiistiisa labadaa intaad haysataanna lumi maysaan buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh misdaaqeeduna qur-aanka kariimkaa buu ku jiraa oo allah tabaaraka wa tacaala waa ka yidhi faimaa ya'tiyannakum minii hudaa hanuun hadduu xaggayga idinka yimaado waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alla alayh wasalam faimaa ya'tiyannakum minii hudaa faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa intaad ku dheggan tahay kitaabka iyo sunnada lumina maysid khasaarina maysid noloshaada ku dheg kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam cibaadaadka iyo waajibaadka diintaada toosiyo hagaaji
محايل النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حلق فتن كتيران ونروح مؤمن كعريري قالوا والدين تيسو هالس كشو وهرجيك إسلايتي فتن كتاقيهين روح عبادة إلهي أوجه السداي وحو لمي دي هيس روح أنيق إيسو هجرو دي أوكالي كهجرة إلي ومقام آدو سريوا وحاكا لطول من لمي ده دنهاقا قرو ومصلحة هذا قرو ومصلحة هذا كو مشغول ودنت هذا آخرية أدون كو مشغول ويان لغو فضو دي سنينو dadkaasi afkaaraha khaldan wata ama danaystayaasha ah yayna ku isticmaalin oo ku adeegsanin wala yastakhifannaka alladhina la yuqinuun aakhara ma yaqaanaan oo ilaahi la kulankiisa mar rumaysna oo wax badan baa ka dahsoon yaysan ku fududaysanin oo si fudud ku duufsanin kuwa noocaas oo kale ah nin barnaamij wato ajenda wata on aakhara u soconino adduunyadiisa rabo inuu u noolaado kursi doonaya ama jagad doonaya ama magac doonaya ama xoolo doonaya intuu galafka kugu qaado inuu kugu shaqaysto bari muxuu ku tari waaya nin afkaar khaldan xambaarsan oo isaga laftiisaba nuusani inuu ku kaxaysto afkaartiisii iyo falsafadiisii ku qaadsiiyo bari muxuu ku qaban karaa waa inaad farta dhexda ka qalido tiraahdo laytani maxaa iigeeyay maxaa rasuulka u raaci waayay maxaa sunnada iga leexiyay maxaa balaayadan iigeeyay maxay qaban waayay waxba ku qaban mayso sidaas daraadeed ayaa nabigeena wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam markay fitanku dhacaan danahaaga khaaska ku mashquul danaha caamka ana isaga tag danaha caamka isaga tag ree hebel baa wax loo raadin iyo gobol hebel baa wax loo raadin iyo tolla ayay iyo waxba maqan dantaada garo dantaada ma taqaanid 60 jir baa tahay oo qabri baa qarka u saaran tahay qabyaalad iyo ree hebelna waad u ololeynaysaa barina ilaahay baad la kulmi doontaa hor istaagi doontaa maxaa damacsan tahay xagee ku socotaa kaaga darane had iyo habeenba waxaad dhageysanaysaa ilaahay baa yidhi oo rasuulkiisaa yidhi oo waxani waa xun yahay oo kuma diirinayso kumana danqayso kumana gelayso meeshaadii baad taagan tahay xumaantii baad ololaheedii ku jirtaa war miyaadan dhimanaynin war miyaadan aakhira aadaynin war miyaadan qabri gelaynin war adoo keliya soo ilaahay ma hor imaanaysid war waxaan soo lagaaga daba imaan maayo war soo xisaabi ma jirto war xageed ku socotaa war maxay kuu qaban ree hebel muxuu kuu qaban oo nin hebel muxuu kuu qaban oo gobol hebel muxuu kuu qaban oo koox hebel maxay kuu qaban oo xisbi hebel muxuu kuu tari muxuu kugu biiriyey muxuu hadda koor kuu taray muxuu hadda kuu hayaa walaa yastakhifannaka alladhiina laa yuqinuun waxaasiyaysan ku fududaysanin waxaasiyaysan kugu danaysanin ويسن دنتاada ku seejinin dantaada ina ku seejin hada dantaada garanayso waxa kamida asbaabta badbaadada xaaladaha marka lagu jiro fitanka badbaadada waxa kamida juhdigaaga iyo dadaalkaaga iyo maskaxdaada iyo qalinkaaga iyo xoolahaaga iyo awoodda ilaahay ku siiyay waxaad gelisaa ilaahay diintiisa inaad ugu shaqayso إلهي وكوهي لنا يا مركض أهيلس إن تنصروا الله ينصركم هذا إلهي أهيلس وإذن هي لنا احفظ الله يحفظك هذا إلهي حفظ ذا يسوون واكو حفظنا يا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وناك هذا سويس أبالك هو وناك سيداس درادد هذا مال ودق الله ميس هذا جهدي يدد القلينيس هذا مال أمور ميس هذا مال حولها كوب حينيس هذا جهدك قلينيس هذا عقلك قلينيس هذا حولها قلينيس ماشات قلين لهيد وإلهي دينتي سأوهيلي إهل كذا أوهيلي هذا قرب يستاك ميدا سوح كتري إلهينا هو حفظنا يا تبارك وتعالى مد دينت إلهي ود قال لما النقاء أما مد قرب يستاكو السقا قربوها مد دينت إلهي برا يوم معلن النقاء
أما مد أهيليو قرب استاغن نقو مد إلهي تبارك وتعالى دعوة سي الدين تي سفافية النقو مد قرب استاغن نقو من مصلحة إيا وناقة أمد كشقية النقو أما مد قرب استاغن نقو هل كاوية ميشا الدنت هذه مصلحة هذا كجرت بدادنا كجرت لكن هذا تكلا حتى جهدي كاغا يددال كاغا ملحن أي قشو خاتمة حنبات كسوحو تاسيح وضو لمني وحكم إذا أسباب تبدادا إن آد بدي صوت دعادا إلهي إنو طريقة صحدا كقصه فتن كان كابد باديو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحكم إذا هدردار مديسي ومديسة وشيدي استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلهي كم قال فتنوينك كوا موقدي وكوا قرصون الله كعرر الله كم قال إلهي كم قال إلهي كعرر خاصة مركي فتنوينك علوسيهين وضدك إنتو دي بدنا أي قاتين إني فتنة داسكو قادة تقركا دو سارنتاهي لأن ماشا بني آدم كاللقاقلو وقلبك قلبكنا وفدود يهي إنو اللي إحدنا وفدود دهي إنو خرمنا وفدود دهي نبينا سيدو شيخ صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم كوحي كتشران لوفرات وإلهي فريهي سكمنا إحدى ذي كتشران سيدو دارو إلهي أرك رقا مناسبة حديثكم كويبين وحي أهد نبي الدعاء ساوحا أبضني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي قلوب ترقرقو قلبي جيج الدين تاذا كسب مركز عائشة وحيت الرسول إلهي دعاء أمبات بدي الساعة محاك بقيسا دعاء كوكو بدن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركز وحي عائشة إلهي الضوء quluubtoodu waxay ku jiraan ilaahay farihiisa siduu doonuna u rogrogaa waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maxaad adiga isu malaynaysaa oo maanta nool oo waqtigan jooga oo fitnooyinkan la nool qalbigaaga xaalkiisu sidee weeye halis baan ku jirnaa saas daradeed ilaahay bari inuu fitanka ka badbaadiyo الله بري تبارك وتعالى إنه كسوغو قلبك خيرك وناك تعليسيو كسوغو استغفقوا وقضبك تضباد أما السديدات مواطن فتنك ما لها اللباتضو كرعيسي فتنك كتشيران كعرر نبي قو عرر صلى الله عليه وسلم فتنك كعرر انت تكدرك كتكدر شرر كذا هتجد هاساوي هذا كقيب قلين فدي كدر كذا كقيب قلين قعن يتلاها كويهالن وحبها كدر سنن هدي كمار مويد النصيحة إلهي كبقى ساقاتيا مصلحة يسوسوتشيد لكن قيبها كان قنن هنا أدوانن هنا كقيب قلن في التنكاسي ميلها أي كالسعودان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نينكي هلي كرميلو كبت بادو همغان قالوا هو عربوا النبي صلوات ربي وسلام عليه إلى كتلي بمقالوين كمركي فتنكو كدعان هداد بيرتادا كوبت بادي كرت بيرتادا آد هداد أريقاga كوبت بادي كرت بادي آد وأريقا تبعو هداد قيل لهذا قيلاga آد هداد قويسكاد كدلتay dhexdooda كوبت بادي كرتو fidnadu kaabad baadi kartana iyaga ku carar si ay diintaada ugu fadbaado laana iyada raasamaal ah xoolo seeg oo kursi seeg oo hanti seeg oo beertaada seeg oo ilmaha seeg oo xaaska seeg laakiin diintaada ha seegin wax walba la waayo waa laga kaban karaa laakiin diintaada waydo kabasho male meel laga soo kaban karo ma saastaradeed baa nabigeena ducadiisa waxa kamid ahay اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا إله مصيبتنا الدين تدحدد هيالين دين تهنجلين مصيبة إيه فتنة إن إلمها كاجشو أو حاسك كاجشو أو حولها كاجشو عافيماتك كاجشو كبش إلى
laakiin markay musiibadu diintaada iyo caqiidadaada iyo cibaadadaada iyo xidhiidhkaad rabbigaa la leedahay halkaa markay fitnadu kaa gasho kabasho ma leh waad halaagsantay halaag xaqiiqiya sidaas daraaddeed wadciga aynu ku noolay wadci sahlan ma aha inaynu dareennoon fahanno wadciga iyo xaalku inuusan sahlanayn mar walbana aan ku dadaalna asbaabta badbaadada oo ilaahay qur-aanka inoogu sheegay nebigi moxamedna sala allahu calayhi waaalihi wasalam aada u faahfaahiyey bal ilaahay waxyigu u keenay nebi moxamed sal alla alayh wasalam ilaa qiyaami saaca waxa dhici doona waa inoo sheegay nebigu sal alla alayh wasalam xaaladahan hadda aan marayno wuu ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu inoo sheegay inay sidan wax u dhici doonaanna wuxuu inoogu daray jidkii badbaadada iyo saynu u badbaadi lahayn nebi maxamed waa inoo raaciyey iyo daawadii cudurkiina waa inoo sheegay daawadiina waa inoo sheegay laakiin yaa garanaya ciddii baratay ciddii ku dadaashay ciddii raadisay aynu marka ku dadaalno asbaabta badbaadada fitankana aynu ka fogaanno cararno diinteennana aan la fakanno sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك